عشر كانوا كليا توحن كشرح دونا table أينو كشرح دونا عشر كانوا كليا waxaan rabaa table laano table waa meel ardada ku yaraad kaata una baahan sharax fara badan table waxa la isticmaalaa marka la isticmaalo waraaqaha leh khaanadaha haday marka mid baan dhisanaa inoo sameeyay ortoon bale ka maarmeeyne center tag bold tag underline soo weyne underline marka inta farta weyne inta marka sameeyso ayada waxa leedahay halkan inoo qor subinof leedahay ball underline farta inoo bedel tadnootid jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leedahay dhinacan ay keen warqadaha mar baan ku socdo laakiin tan kama maarmisid dhinacan ay keen lambarka yare kadib fartan iga bedel inta marka sameeyso waxa leedahay liiska magaca shaqaalaha xafiiska marka taas sameeyso ayaad leedahay waxaad leedahay koonahan aad keenaysaa waxaan ku bari doonaa qaabka loo qoro warqadaha bisha January okay markaad leedahay inta marka sameeyso leedahay waxaad leedahay warqada lacag qaadashada inta marka sameeyso ayaad enter siinaysaa koonaan kala tagaysaa markaas aad keensanaysaa daba insert hadda laakiin bishuruud waa in halkaas 12 suuna kaaga weynaan waxaan dhanka ka wasaar waa in halkaas 12 ku ahaada soo soo quruxda marka kugu soo markuu sidaa kugu soo baxo hadaad san dulgeys marka uu iska imanaya laakiin insert column insert table baa laga tagay si buu ku sharxayo insert table ka markaad ka tagto number of columns waxa la isticmaalaa waa xagga sare rows kuna waa ku hoos bal tijaabi 20 shaqaale weeyaan kaas iyo waxa weeyaan magac waa lambarka iyo magacooga iyo lacagta qaateen iyo bisha qaateen iyo totalka waa 5 okay si hadda imika maxaa haysaa intaas sare 1 2 3 4 5 waxa la yiraahdaa column waxaan hoos inta hoos oo dhan 20 ka hoosana waxa la rows baa la yiraahdaa saa u kala faan okay saa u kala faan هذا النمبر halka waxa ku qortaa number halkana magaca halkana tirada lacagta halkana bisha halkana totalka inta marka sameeyso ayaa horta waxa muhiim jiddan ah qaabka la isku dhadhaweeyay waxa lagu yiri kan iyo kan yar halkan ha balaadhado tanna ha dhuubnaa qaabka la isku dhaweeyay waxa weeyaan inaad marka hore bahalka yar ee circle ka yar waa inaad sidaa u qabataa mooska dhinaca bidix adoo xijinaya waa san loo dhaqaaqaa dabay sii deysa baadoo fiirso ee goon ku dhaweynaya waka waan ka yar doonay dib u soo celinaya kan iyo kan ayaa lagu lacagta waxaan tirada lacagta ka saar isku dhaweey baa lagu waa inaad halkan ka soo dhaweysay kaasa balaadhay kaana soo dhaweey baa lagu waan soo dhaweysay baa lagu kan yar balaadhay hortan yar waa yar balaadhay kan soo dhuub baa lagu waxa faahantay qaabka la isku dhaweeyay waa inaad kala dhaxgeysa mooska marka calaamadaas timaado ayaad xijinaysaa marka line ka dheer ku yimaado line ka dheer ayaa la saaw la raacaysaa xagga sare halkaas sare isbedelaysa halkaas sare oo arkaya okay markaad sii deynaysaa markaad meesha u baahnayd gaadho waxa muhiim ah inaad halkan calaamada u sameyn karto highlight yar oo kooban baad saari kartaa bariga halkaas aad ayar taabanaysaa amba inta halkan saarto ayaad arrowga yar saaw la raacaysaa adigoo xijinaya mooska dhinaca bidix dabeed home baad tagaysaa home marba ka maarmayso ay ku sheegay midabka dunta sameyn karaysa okay halkana ku timid halkanaan midab u sameyn karaa waxaan tagayaa shapes hadda waxa fahmaysaa shading wuxuu qabto hadda fahamso midab uu sameeyaa waxa la yiraahdo khaanadaana midab u sameey total midab noogu sameeyo saan u kala garano markaas halkan ay tagaysaa waa kan adiga arkaya imika waxa fahamtay shading wuxuu qabtaa midab buu ku shuma waan ku yiri kan laakiin qoraalku koobay hadda xagan sare rabtana inta no color taatan umbad ayar kan soo umbad highlight ku cushanaysa ayar umbad soo furanaysa kan mar kale waxa uu saa ku sameeyaa okay inta markaad sameeyso ayaad ku qoranaysaa number 1 kan kalena waxaad afarta gees keyboard kaaga ayaad ku durki kartaa markaas aad Maxamed Nuur Jaama markaas aad halkan lacagtu qaatay waa calaamada doolarka marka la isku qabanayo waxa la isku qabtaa shift plus calaamada doolarka ee dul taal number 4 markaas aad $5 $6 bishuna waa January hadda
haddana soo noqo number 2 waxaad imanaysaa number 2 haddana godka magaca lambarka waxa weeyaan Muuse Cumar Nuur calaamada doolarka waxaan ku waa shifty waata shifty ku xigta sad dhinaca ka xigta gacantaada bidix qabanayso calaamada doolarka number 4 bay u taala 4 iyo 46 bishuna waa February bal hadaad enter siiso enter wuxuu ku leeyahay February si aan anigu u qoro enter si waayo automatically waa siisay enter baan riixay dhag isaga qoraya waxaad sameynaysaa 3 waxaad qoraysaa Maxamed Nuur wuxuu calaamad doolarka shift plus number 4 oo dul taalo Afrilaad markaas aad qoraysaa waxaad qoraysaa Augusto amba waxaad qoraysaa January wuxuu ku leeyahay January han qoraya wuxuu press enter to insert bal enter taabasaan u soo geli ka dhag inta kalena waa tusaale ahaan aad ka qaadanay waxa muhiim ah oo buug macna ku sheegaya qaabka loogu soo dari karo column kale hadda waxa loo baaday halkaas column looga baahay waxa la wuri halkan ka daa waxa halkan faahfaahin ka dhig oo bal totalkii soo geli faahfaahin yara kala durkina waa in calaamadii fahantaa dee kala durkinta hal mar yaanu mar dama ku soo halkaas la wuri calaamad totalka sida uu keenado qaanad total waa inaad insert tagtaa insert eg marka halkaas aad joogto halkaadoo jooga in baad halkaadoo jooga baad right click siinaysaa insert baad leedahay midig mise bidix midig ka soo gali baad ka soo gali waa wax yar oo fudud okay hadaad bidix rabtaan halkan baad ka bilaabaysaa intaad halkan kan tagto intaad kaas u tagto dhex geyso laakiin dhinaca marba ku adkaanay halkan mar walba ka isticmaal waxa la hib bidix ku tuur halkan uu kaga daraya laakiin xaggaas aad ka soo durkaysaa anaa saa u fahmay okay hadda waan fahmay total isku soo dhoobay waxa waxaad fahantay marka lagu soo daray right click la insert kan waxa ka sare lagu dhahay hadana kaga dar waa above waa ka xagga sare kaga daray waxa uu xagga hoose kaga dar waa below waa ka xagga hoose kaga daray sax hadda wax kugu adkaanaya ma jiro hadda inta ay la qabsatay aan kugu soo celiyo markaad ku soo darayso waxa lagu leeyahay right click si dhinaca column-ka ugu dambeeya dabadeed bidix kaga dar midig kaga dar xagga sare kaga dar xagga hoose kaga dar waxa muhiim ah waxa la wuri labadan saddexdan dhammaan khaanadahaas oo dhan laymanka yar u kala xidhan deerarka yar ay kala xidheen isku furba lagu way dhacdaa waraqa qaar ba lagu qoraa intaas oo dhan isku furba hal khaanad isku furan noqoto marka sidaa rabta highlight ka saaraysa inta isku furayso kadib aad right click siinaysaa waxa la yiraahdo merge size aad sameynaysaa waa ka merge size oo ku isku furmay laakiin taasoo farxmo ee waxaad isku furi kartaa midalan labadan aad isku furi kartaa right click merge size imka waxa isku furan January iyo waxa soo simid iyo lacagteedii haddana waxaad isku furtaa way dhacdaa mar qaar nooca loo qoro oo dad baa qorwaad wax walba u sameyn kartaa merges waa ka okay waxa timid inaad line dhan baa lagu line ka dhan isku fur totalka anaga qalin ku qoranne markaas aad merges text oo ka gabi isku frame waxa la faahfaahinta anaga qalin ku qoran isku highlight kuma saarsan mar walba highlight kan loo kugu soo cilmaayo waayo hal mar in faantaan doonay waa ka inta ma ku sidaa yahay ayaa waxa hadana u baahan tahay waxa lagu bal kan laftigiisa midab u samee nashqad kan laba jeer baad halka click siinaysa oo kuwan halka soo furas caalam baad ka dhigaysa baalkaaga yar ruux badan oo ka halka ka door marka kuma khadoontay waa design ka tagaysa achieve weyn baalka achieve ka sameynaysa waa darkas laba jeer baad waxa ku click siinaysa oo ka soo sameynaysa ka doonti okay caalam okay waxa la wuri intan midab ku intan bal hada macay shading kan ku qabanaya shading laftiisu intaas midab gooni hadana ku sameynaya tanna waa border waad ku soo xiri kartaa border laftigiisa khaanadaada ku xiran kara markaas aad sameysanaysaa dad dunti mid yar koonaha ee saa ugu sameyn karaysaa jeeda line yar baad ku sameysan karaysaa intani waxaan ku sharxay buugga waad arki doontaa insha Allah halkan line adaa sameynay hadda mid baan sameynay inagu waa inaad u soo sameystaa mid baad sameysanaysaa bal u fiirso waka mid khaanad yar bay naga alifeenaba markaas aad laakiin click waa inaad isticmaashaa
waxaad fahanteen inagoo samaysana laakiin waanaad mooska adoo hayaa qalbad saa ugu samaysa eeg markaas mooska dhinaca bidixda mar kastood shay samaynayso dhinaca bidix baad haynaysa waad sii deynaysa kadib aad samaysanaya kuwan laftigooda midab ku dhex samaysan karta qaanada yar mid walba nooc kale ka dhigan karta waad iga fahmay iminka de wax badan baad baa ka fahantay ma sha Allah insert waa aad baad u fahantay kuwani isu waxaad fahan kuwan quick table waxa weeye mid degdeg ah bilow ka samayn karaysa waa bilaha marka samaynayso aad ku samaynayso qaanad cusub iska furayna si aad marka u fahanto waxa ku sii dhex jira quick table waxa weeyaan inaad samayso bisha bilaha dabadeed si yar oo fudud aad u samayso waa kan hadda kana soo qaad kana wada dhameystir May waa kan bisha dhab sidaan u samayso waad arkaysa iyada laftigeeda nashqada leh kale kun si waa isku design dag waxa nooc doonta ka dhigan kartaa kala halka waxaad ka samaynaysaa marka taas samaynayso waxaad tagaysaa insert table oo kugu celinaya halkan hal mar tijaab waxaan video haddaan hal mar adoo tijaabisa hada kaga maarmaya oo ku abr waxaas oo dhan ay caalam badsan college new student graduate student change wixii oo dhan adaa samaysanaya mid aad u baahan tahay dhag total kuwa kuwa habada alaabta samaysan maanta halkaas ay waxaan ku joojinaa barashadii table insha Allah waxaan ku xigsiin doonaa casharkeena insert oo isaguna waqti badan qaadan doona